الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أحبة الإيمان، إن شاء الله تعالى وحنجعل هاي كلمة أو كوبا أو كسابسا شهر الله المحرم وما أنت أفر inaan biidn illaahi tacaala idiin soo gudbiyo si aad la socotaan walaalayaal. ilaahay subxaanahu wa tacaala bilaha aynu tirsanno isaga ayaa qur-aanka ku sheegay qaabka iyo siyaabaha ay u kala fadilan yihiinna ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku sheegay. nabigana calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa ayuu ku caddeeyey. sidoo kale allah wuxuu leehay subxaanahu wa tacaala ina ciddata shuhuuri cinda allaahi 12 shahran إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله يقول سبحانه وتعالى بلها ترسقوضو كتابك الله سبحانه وتعالى دحديث واللبية بلوت وحاكم إذا أفر بلوت أو حرمله وحاكم إذا أفر بلوت أو حرمله. afartaa bilood ee qur-aanku sida mujmalka u sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa si tafsiila u sheegay magacyadooda. dabcan sunnaduna waxay sharaxdaa kitaabka qur'aanka wixii uu ijmaaliyey. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina zamaana qad istadaara ka hay'atihi yowma khalaqa asamaawaati waalardi minha 4 xurum. zamanka wuxuu u wareegay ama u wareegayaa sidii ilaahay u abuuray subxaanahu wa tacaala laga bilaabo maalinka adduunka iyo dhulka iyo cirka maalinkii la abuuray. waxaa ka mid a bilaha ayaga biluhu waa 12. waxaa ka mid a 4 bilood oo xurmo leh. nabigu wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam dulqicda wadulxija wamuxaram wasafaru mudara alatii bayna jumaada wa shacbaan. 4 bilood ee xirmada leh qur-aanka lagu sheegay ee ilaahay uu yidhi minha 4 xurum. nabigana calayhi salaatu wasalaam afartaa wuxuu ku sheegay inay yihiin 4 bilood. dabcan haddii gaar loo sheegay xurmo lagu sheegay bilaha iyaga macnaheedu waxaa weeye bilo fadli badan inay yihiin. bilihii waxaa ka mid a shahrullaahi almuxaram oo bisha aynu ku jirra hadda bilaabatay maanta oo axadana 4 maraysa. sanadka hijriguna waa 1439 buu noqday 4 beri ka hor. taariikhda islaamka iyo tirsiga bilaha islaamka qofka muslimka inuu bartaay waa muhim. maxaa yeelay waxaa ku xidhan diintiisa iyo cibaadadiisa waa ku xidhan. waxaa ku xidhan axkaamtii isaga ku tacalluqday baa ku xidhan. sidaa darteed baa muhim u tahay qofku inuu barto, inuu la socdo axkaamta ku jirta, inuu ka faa'iidaysto waxyaabaha ku jira. saasaa loo baahan yahay. bilaha ayaga xurmada ilaahi subxaanahu wa tacaala uu noo sheegay mid ka mid a baynu ku jiraa. bishaana nabiga calayhi salaatu wasalaam fadli badan buu ku sheegay. fadliga bisha lagu sheegayna wuxuu ku jiraa 10ka bisha hore ayuu ku jiraa. guud ahaan bishu waa bil barakaysan, gaar ahaanna 10keeda hore ayaa waxaa ku jira waxa fadliga badan u sii yeelaya qayb ka mid a. wuxuu yahay waxaasi bishan muxaram inuu ku jiro yowmul caashuuraa maalin lahaydoo maalinku bishu 10 ay tahay kuna aadan ilaahay hadduu ina gaadhsiiyo sabti inuu soo socota oo bishan aynu ku jirro oo sebteembarra ay tahay 30 ay tahay. maalinka isaga nabiga calayhi salaatu wasalaam yowma caashuraa kaana yasuumuhu sala allahu calayhi wasalam wa amara bisiyaamihi. dadkana wuxuu amray in la soomo. nabiguna waa soomi jiray calayhi salaatu wasalaam. qabla ramadaan buu nabigu soo jiray sala allahu calayhi wasalam. culimmadu sida ay leeyihiin ramadaanka ka hor isagaaba waajib ahaa. ramadaan markii la fardiyey sanadkii 2 hijriga oo madiine la joogay, markaas baa nabiga calayhi salaatu wasalaam u sheegay dadka waajib inuu ramadaan ku yahay. tii kale oo horey loo soo soomi jirayna qofkii raba inuu soomayo ikhyaar la siiyey. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu adkeeyey sida oo kale soomka ku jira caashuuraa ee sunnada abuu nabiga adkeeyey sala allahu calayhi wasalam. waxyaabuu ku adkeeyey waxaa ka mid a in isagoo naftiisa samayn jiray, inuu saxaabada u amray iyo muslimiinta, inuu nabigu sala allahu calayhi wasalam qura almadiina uu u diray nin saxaabi ah oo iclaamiya dadka muslimiinta gaadhsiiya maalinkii yowma cashuuraa. uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam waxaa u sheegtaa dadka qofkii waagu uu baryey oo maanta sooman afuran maalinkiisa ha dhammaystiro, kii soomanna ha soomanaado. taa waxaa ku tusinaysaa sida soomkeedu uu adag yahay. marka yowma cashuuraa
oo maalinka bisha 10 ay tahay waxaa sunnaa maalinka asaga in la soomo qofkii soomana nabiga calayhi salaatu wasalaam ajir badan buu ku sheegay inuu helayo saxaabi ayaa nabiga weydiiyey soomu yawmi cashuuraa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam axtasibu cala allaahi an yukafira asana alatii qablah waxaan ilaahi subxaanahu wa tacaala kaga ajir raasanayaa ama kaga ajir dalbayaa sanadkii lasoo dhaafay dunuubtiiha in lagu dhaafo waa shay aad u weyn oo qaali ah weeye sanad dhan dembigii inuu ilahay kugu dhaafay subxaanahu wa tacaala waa soom maalin aa soontay oo sunnaba ilahay dembiga asaga uu kugu dhaafaa waxaa kaloo sunnada ka mid walaalayaal nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada baa u yimaadeen markaas waxay ku leedahay nabi allow maalinkan aa soontay yuhuud baa soomaan yuhuud iyo nasaare ayaa weyneeyeen nabi wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam lain baqiitu alqaabila la asuumanna taasic haddii aan noolaado oon jiro sanadka soo socda waxaan ku darayaa buu nabigu sala allahu calayhi wasalam maalinka sagaalka ayaan ku darayaa marka waa sunno maalinka sagaalkaana in la soomo waxayna ku aadan tahay jumcada inugu soo socota oo bishan sebtembarra ay tahay 29 marka labada maalmood qofka muslimka inuu soomo ayaa loo baahan yahay si ajirka weyn uu u helo sida oo kale guud ahaan bishan maalmaha ku jira oo soonku uu sunnada yahay sida khamiista iyo isniinta oo kale sida ayaamul biidka oo ka dambeeya 10 ka dambeeya oo kale inuu qofka uu soomo si ajirka faraha badan uu u helo oo bishan fadliga badan soomkeeda lagu sheegay si gaar ah waxaan u lahaa dadka walaalaha in ay isgaarsiiyaan arrinta ayada ah khaasatan qofkii mas'uul ah oo ahal iyo awlaad iyo reer mas'uulka inuu ka gaarsiiyo xitaa dadkii soomka qadaha lagu lahaa bishan qadaheeda inay badiyaan sababta waqtigeeda fadli badan camalkii la qabtay cibaadadii la sameeyana way fadli badan tahay marka inaan ku dadaalo oo isaynaga fakanin dambi dhaafka sanadka lagu helayo ayaa aad iyo aad runtii muhiim idinkuna boorinayaa ha laga faa'iideysto baarakallahu fiikum waxa soo arooray oo sunnada ahana waa qaamkii nabigu u sameeyey oo siyaam ah in la sameeyo ayaa loo baahan yahay cibaadaadkii kale oo ama sadaqa leh ama quraan akhris leh ama macruuf kale iyo biri kale leh qofka waa u furan tahay waa waqti fadilan waa waqti fadli badan ilaahina subxaanahu wa tacaala waqtigaa fadliga badan cibaadadii la sameeyo fadli buu ilaahay geliyo subxaanahu wa tacaala marka aynu ka faa'iideysanno maalmahan iyaga ah ee qaaliga ah ee aynu ku dhex jirro qaarkoodna ay inuu soo socdaan in aynu ka faa'iideysanno ayaa aad iyo aad muhiima kelimadeenna maantana waxay ku socotaa arrinta waxaa ku soo gabagabayn lahaa dadka muslimiinta ah inay bartaan bilaha islaamka ee axkaamta ay ku xidhan tahay awlaadooda iyo carruurtoodan inay baraan oo ay ogaadaan bilaha islaamka iyo waxyaabaha ku jira arrintaa muhiim weeye haddii aadan bilihii la soconin haddii aadan waxa ku jiro axkaama aadan ogeyn dee waxba kama faa'iidaysan karaysid maalmaha ku maraya bilaha ku maraya bay kuula mid yihiin laakiin innaga islaamkeennu iyo diinteennu sidaa ma aha biluhu waa kala fadli badan yihiin maalmuhu waa kala fadli badan yihiin saacaduhu waa kala fadli badan yihiin habeenadu waa kala fadli badan yihiin qaybaha habeenka ayaa kala fadli badan amaakintu ilaahay kala fadilay subxaanahu wa tacaala aadamihii wuu kala fadilay inaan marka baranno meelaha fadliga badan iyo waxay ku fadli bateen wixii ku jiro cibaadana marka aan la nimaadno sidaasaa loo baahan yahay allah subxaanahu wa tacaala biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculaa an yajcalana miman yastafiiduuna hadihi alfursa ilahay dad ka faa'iidaysanaya jaaniskan ilahay nagu daro soomkeedana ilahay hana waafajiyo thawaabkeeda iyo ajirkeedana ilahay hana siiyo subxaanahu wa tacaala jazakum allahu khayran baarak allah fiikum sala allahu wasalam wabaarak calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasallam